ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa seegtay furitaanka shirka G20 kadib markii diyaaraddii sidee oo hawada ku jirta ay la soo gudboonaatay cilad farsamo taasoo keentay inay si degdeg ah u degto dib u dhacani wuxuu dhibaato ku yahay kulamo qorshaysnaa oo labada maalmood uu socdo shirka G20 ay la qaadan lahayd hogaamiyaasha Mareykanka, Ruushka, Shiinaha iyo Hindiya wax yar kadib markii ay fiidnimadii Khamiista ka soo duushay Berlin ayay diyaaraddii sidee ka noqotay hawada Netherland iyadoo si degdeg ah uga degtay garoonka Cologne ee galbeedka Jarmalka Merkel iyo wasiirkeeda maaliyadda oo ay weheliyaan koox wariyaal ah ayaa lagu qaaday bas waxayna seexdeen hotel ku yaala Bonn oo hore caasimad ugu ahaan jirtay galbeedka Jarmalka ka hor intii aanu dalkaasi midoobin maanta oo Jimco ayay u duushay Madrid oo ay ka sii aadi doonto Buenos Aires iyadoo saaran diyaarad caadi ah sida uu sheegay afayeenka xukuumadda Jarmalka Steffen Seibert duuliyihii diyaaradda oo nooceedu yahay Airbus A340 ayaa ku wargeliyay ra'iisul wasaaraha iyo rakaabkii la socday inay soo wajahday cilad farsamo oo ay istaageen qaybo ka mid ah nidaamka korontada diyaarad nooceedu yahay isla Airbus A340 oo uu ku safro madaxweynaha Jarmalka Frank Steinmeier ayaa sanadkan gudihiisa dhowr jeer la xumaatay toddobaadkii hore ayuu Steinmeier dib u dhacay safar uu ku mareeyay dhowr dal oo ku yaala Afrika markii ay diyaaraddiisa soo wajahday cilad sidoo kale diyaaraddiisa ayaa dhulka loo dhigay cilad farsamo markii uu booqanayay Belarus bishii July ee sanadkan